dowladda Soomaaliya iyo dowladda Talyaaniga ayaa ka wada hadlay xiriirka ama iskaashiga dhanka ciidamada iyo amniga sida warkan inagu faahfaahinay wariyayna Cabdullaahi Taliil Gacma مدن وزير سلامت هذا وحاو ديار wafdi ka socday Talyaaniga uu hogaaminayay wasiirka difaaca Elizabeth Tarrant uuna qayb ka ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Talyaaniga General Enzo Vaccarella iyo xubno kale oo maanta soo gaaray Muqdisho ayaa waxa kulan ay la qaateen wasiirka difaaca xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dambe wasiir dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha taliyaha ciidanka xoogga dalka iyo xubno kale oo ka tirsan dowladda kulanka ayaa looga hadlayay sidii loo xoojin lahaa xiriirka ka dhaxeeya labada dowladood iskaashi laga sameeyo dhinaca ciidamada iyo wada shaqeynta labada wasaaradood ee difaaca wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya xildhibaan Xasan Cali Maxamed Amar Dambe ayaa warbaahinta u faahfaahiyay kulamo ay labada dhinac wada qaateen iyo wixii laga wada hadlay maanta oo taariikhdu tahay 8 bisha Afraad 2019 waxaan soo dhaweynay caasimadda Soomaaliya wasiirka wasaaradda gaashaandhigga dalka Talyaaniga Mrs Elizabeth Tarrant iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Talyaaniga iyo wafdi ballaaran ay hogaaminaysay taasoo runtii aan ka wada hadalnay xiriirka labada dal guud ahaan oo taariikh ka fog leh waxaa sidoo kale aan ka wada hadalnay xiriirka gaar ahaaneed ee naga dhaxeeya wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Talyaaniga iyo wasaaraddeena ee gaashaandhigga ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya wuxuu ahaa kulan aad iyo aad u qiimo badan waxaana runtii ka wada hadalnay sidii isaga kaashan lahayn arrimaha ciidanka sidii wada shaqeyn dhow aan u yeelan lahayn ayaan ka wada hadalnay waxay ahayd booqasho runtii aad iyo aad u qiimo badan waqti dhow wasiirka gaashaandhigga ee Talyaaniga oo dalkan ku imaanin oo maanta iyagoo fuud sara ay noogu imaadeen waxayna u ahayd guul ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga runtii ayay u ahayd wuxuuna ku dhamaaday si wanaagsan oo isfahan ah oo runtii heer sare ah insha Allah waxaan rajaynaynaa xiriirkan inuu sii fogaado inuu sii weynaado uu gaaro insha Allah ta'ala meel dhamaanteena baan ka wada faa'iideysan karnaa wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh dowladaha Soomaaliya iyo Talyaaniga ayaa leh xiriir soo jireen oo qoto dheer iyadoo ay dowladda Talyaanigu ay qayb ka tahay dowladaha Soomaaliya ka taageera amniga iyo horumarinta ciidamada qaranka Abdullaahi Gacmo, Som News TV, Muqdisho.